السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتكم حيران مضل ميديا فضل سبسكرايب قرية هدي أدكو عصوب تاي channel كان سي أدو هشو حق كستو أن هالكان كسو بنو هاتا نكسو دوادو حمين كساب سنقوان كاي دولد الصوماليا كاقاتي خلافكي خليجكا سندكي لصودا في قار كميدا دولدها خليجكا ايا حريركا وچراي قودو من بدا بريغي يهودا أهنا كسو رغي دولد قدر dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa horkacayay dowladihii xayiraadda saaray Qatar oo gaarayay 6 ilaa 7 wadan oo Carab ah oo isku raacay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jiraan dowladda Qatar oo markaa xulufo la ahayd. Sacuudiga oo arrinta garwadeen ka ah ayaa Soomaaliya ka codsaday inay ka mid noqoto dowladaha xiriirka saaxiibtinimada u jiray Qatar. laakiin arrinta ayaa waa noqotay mid Soomaaliya ay ka qaadato go'aan dhexdhexaadnimo ah. arrintan ayay Soomaalidu ayagoo dhinacyo badan ka fiirinaya ku tilmaameen arrin sharafta Soomaaliya kor u qaaday halka dad kalena ay aaminsan yihiin in go'aanka qaldanaa oo Sacuudiga xulufadiisa in la raacay wacnayd balse ma aysan dhicin oo Soomaaliya waxa ay qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo ah. waxa si lama filaan u xoogaystay xiriirka Soomaaliya iyo Qatar waxa muuqanaysa isku soo dhawaad siyaasadeed ee dhexmarta Soomaaliya iyo Qatar. go'aankii dhexdhexaadnimada ee Soomaaliya qaadatay wuxuu bog cusub u furay in Soomaaliya iyo Qatar ay noqdaan laba dal oo mashaariic horumarineed mid military dhaqaale iska kaashada. waxa bilowday in Soomaaliya iyo Qatar ay kala saxiixdaan heshiisyo lagu dhisayo wadooyin xarumaha dowladda Soomaaliya. waxa sidoo kale la kala saxiixday in Qatar ay taageerto ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. inkastoo heshiisyadii la galay aysan wax badan ka fulinin, Qatar ayaa Soomaaliya ugu deeqday 62 gaadiidka gaashaman ah oo markaa loogu talagalay inay isticmaalaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. sidoo kale Qatar ayaa ahayd dowladii Carbeed ee ugu horeysay u soo gurmatay ummadda Soomaaliyeed kadib markii masiibadii qaran ee qaraxii 14 Oktoobar u dhacay. xiriirka si xoogaysanaya Qatar iyo Soomaaliya ayaa sababay in Soomaalida joogta wadanka Qatar si ixtiraam leh loola dhaqmo oo waliba loo ogolaaday inay ka shaqeystaan wadanka Qatar oo ganacsi ay ku abuurtaan. Soomaaliya ayaa talo iyo taageero la garab taagnayd tan iyo markii Qatar ay dowladaha Carbeed xiriirka u jareen. go'aamintii Qatar ay saareen wadamada Khaliijka ayaa u muuqata mid saameyn aan ku yeelan Qatar iyo diblomaasiyadii ay dunida ku lahayd. fadlan subscribe garee channel-kan si aad u hesho macluumaad kasta oo aan halkan kugu soo gudbinayno. Madal Media, isha wararka dunida.